بسم الله الرحمن الرحيم ظهر وناكسن كسو دواada qodobada wararka reediyo kulmiye wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka oo maanta tagay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay al-shabaab oo la sheegay inay guriyo badan ku gubeen deegaanka caad ee gobolka Mudug in ka badan 20 qof oo ku dhintay dagaalo ka socda magaalada Mooyaale una dhaxaysa Soomaalida iyo Oromada Itoobiya qaramada midoobe Turkiga iyo Sacuudiga oo si kulul u cambaareeyay qaraxyada iyo weerarkii shalay lagu qaaday xarunta wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya xildhibaan ka tirsan golaha aqalka sare oo wasiirka amniga Soomaaliya ugu baaqay inuu iscasilo shacabka magaalada Hargeysa oo maanta banaanbax ka hor dhigay xarunta madaxtooyada Soomaaliland kumanaan ruux oo shaqada laga eriyay dalka Turkiga iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo booqasho ku tagay Eritrea Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado Hormuud saaxiibkan u qaad mar kale duhur wanaagsan dhageystayaal intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka duhur ee radio kulmiye waa duhur axada taariikhdana waxay ku beegan tahay 8 bisha 7 2018 warka duhur Cali Ibraahim Cabdullaahi ayaa soo saaray xawaalul Cubayd iyo Maxamed Axmed ayaa wada jir u soo jeedinaya ku soo dhawaada warkii oo dhan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo wafdi balaaran uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Baydhabo ee gobolka Baay safarka gudoomiyaha ayaa waxaa qayb ka ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxaa la filayaa inuu la kulmo ama uu kulamo la qaato mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya isagoona kala hadli doona xaaladda deegaanada Koonfur Galbeed iyo dhibaatooyinka ay al-shabaab ku hayaan shacabka ku nool deegaanada maamulka Koonfur Galbeed sidoo kale gudoomiye Mursal ayaa waxa uu kulan la qaadan doona xildhibaanada Koonfur Galbeed iyadoona sidoo kale dhawaan uu gudoomiyaha uu booqan doono magaalooyinka ay ka arimiyaan madaxda maamul goboleedyada ee ka jira dalka ammaanka magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa maanta aad loo adkeeyay waxaana wadooyinka lagu arkayaa ciidamo badan oo sugaya ammaanka magaaladaasi dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay guryo badan ku gubeen deegaanka caad ee gobolka Mudug halkaasi oo maalmihii la soo dhaafay ay kula dagaalamayeen dadka deegaanka wararka soo baxaya ayaa sheegaya in al-shabaab meelihii ay dadka deegaanka kaga awood roonaadeen in ay guryahoodii ku gubeen Shaafici Shariif Maxamuud ayaa warkan ka soo diray magaalada Cadaado wararka ka imaanaya deegaanka caad ee gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ay dab qabadsiiyeen guryo badan oo ku yaala deegaankaasi dadka deegaanka qaar ka mid ah oo la hadlay KNN ayaa sheegay in al-shabaab ay wali ku sugan yihiin deegaanka caad ee gobolka Mudug isla markaasina waxa ay tilmaameen al-shabaab in ay bilaabeen inay dab qabadsiiyaan guryaha ku yaala deegaankaasi Mahad Xasan Maxamed wasiir ku-xigeenka amniga maamulka Galmudug oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in al-shabaab ay dhibaato badan ku hayaan shacabka ku nool deegaanka caad ee gobolka Mudug sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu tilmaamay in al-shabaab ay guryo badan dab qabadsiiyeen taasi oo sheegay in ay tahay wax aad looga xumaado isagoona xusay in maamulka Galmudug ay dhawaan arintaasi wax badan ka qaban doonaan waxay sameynayaan wax maartay binaadamnimada ku xun awalna weligood ay samayn jireen markii meesha jab ka gaaray waxay go'aansadeen inay shacabka ku cartaan waxay sameynayaan dad shacabka qofka ciidan u keeni waayo ciyaalka usoo garin waayo ama taageeri waayo inay guriga ka guraan xoolaha ka dhacaan dhibaato badan bay ku hayaan dadka shacabka insha allah waxaan rajeynaynaa inaan masoo ka qabanna haddii ilaahay guryo badan iyo guryoyin miyiga waxta u daran reer aqal Soomaalidu isna isku gooyeen oo xoolihii iska weynayaan maadaama dadka shacabka diiday dhibaatada iyo xabbiga ay ku hayaan in ayagu dhibaatooyinka shacabka ay go'aansadeen marka dadaalada wadna haddii ilaahay halka dhigo arjeynaa in hawshaas ka soo afjarto shacabku nabad heliyo caad ka dhacaya falkan marka doonaan awalba arham darra shacabka Soomaaliyeed oo dhaqmi jiray deegaanka caad ee gobolka Mudug ayaa waxa xilligan isku hor fadhiya dadka deegaanka iyo dagaalyahano ka tirsan al-shabaab iyadoona wali xiisad colaadeed ay ka taagan tahay qayb ka mid ah gobolka Mudug Shaafici Shariif Maxamuud Radio Kulmiye Cadaado
in ka badan 20 qof ayaa ku dhintay dagaalo ka socda magaalada Mooyaale ee ku taala xuduudda u dhaxaysa Kenya iyo Itoobiya. dagaalkaas waxa uu dhaxeeya dad Soomaaliya iyo Oromo. Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim ayaa warkan faafahinaya. magaalada Mooyaale ee dhacda xuduudda Itoobiya iyo Kenya sidoo kalena u qaybsanta ismaamulada Oromiya iyo sidoo kale Soomaalida ee Itoobiya ayaa waxaa maalmahan ka socda dagaalo xoogan oo u dhaxeeya dadka Oromada iyo sidoo kale kuwa Soomaalida ah. dagaalka ayaa shalay iyo maanta waxaa la soo warinayaa inay ku dhinteen dad gaaraya 20 qof, waxaana dhaawaca lagu sheegayaa in ka badan 30 qof oo kale, sida ay inoo sheegeen Soomaali ku sugan halkaasi balse ka gaabsaday in codkooda warbaahinta loo adeegsado. sababta keentay dagaalka ayaa waxaa lagu sheegayaa in mas'uuliyiin ka tirsan kuwa Oromo ee magaaladaasi degan ay culays joogto ah saareen dhaqdhaqaaqa Soomaalida magaaladaasi. saacadihii ugu dambeeyay sidoo kale gawaari ay leeyihiin Soomaali ayaa lagu gubay halkaasi. mid ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Mooyaale ayaa ka warramaya dagaalka socda iyo sababta keentay, sidoo kalena gawaarida la gubay ayaa uu sheegayaa. walaal dagaala muddo 12 bilood soo socday waaye. ujeedada ugu weyn sidaad la socotid Mooyaale waxay ku taallaa xuduudda Kenya. waxaa dagaalamayaa Soomaali Oromo. dhinaca Soomaalida garro ayaa kolley hadda magaalada dalka deegaanka u badan garro waaye. dhinaca Oromadana Boran waaye, ma fahantay? walaalow dagaalku wuu socdaa. marka shalay ayaa waxaa dhacay magaalada Mooyaale gawaari Soomaali ay leedahay oo tuulooyinka ka yimid. 5 gaari ayaa muraayada laga jijibiyey, Oromo ayaa ka jijibisay. 1 gaarina way gubeen oo wiilkii daroolka ahaana way dileen, ma garatay? marka Soomaalidana dhalinyaro ayaa kacday. ninna Oromo u dhashay oo meesha kastanka magaalada Mooyaale haysa oo la yidhaahdo Kanyaalo oo sanadkaanba dagaal kula jiray Soomaalida inuu barakaciya dhaqaalo ku bixinayay leesasada Soomaalida inay shaqeeyaan u diiday. ninkaas ayaa dhalinyaro Soomaaliyeed u dhacday gurigiisa la gubay. xalay saasaan ku barinay. magaalada Mooyaale ayaa dagaalka awgi waxaa lagu warramayaa in ay ka barakaceen dad kumanaan ah oo Soomaali ay ku jirto. biyo la'aan iyo gaajo ayaa meelo ka mid ah magaaladaasi ka jirta. eed ayay shacabka Soomaaliyeed ee Mooyaale u jeediyeen maamulka Soomaalida Itoobiya ee kilinka shanaad oo ku aadan in aysan u garabgelin ama ugu doodin sidii loo baahnaa. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ka mid ah dadka ku baaqay in la joojiyo colaadda u dhaxaysa Soomaalida iyo sidoo kale Oromada oo meelo badan ka wada dega Itoobiya. mahadsanid Cabdiqani. qaramada midoobay Turkiga iyo Sacuudi Carabiya ayaa si kulul u cambaareeyay qaraxyadii iyo weerarkii shalay lagu qaaday xarunta wasaaradaha amniga iyo sidoo kale arrimaha gudaha ee Soomaaliya. war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa lagu cambaareeyay qaraxyadii iyo weerarkii tooska ahaa ee Al-Shabaab ay ku qaadeen xarunta wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. wararka ka soo baxay dowladda Turkiga ayaa waxaa loogu tacsiiyey ehelada iyo asxaabtii dadka geeriyooday, waxaana sidoo kale la sheegay in Turkigu uu caafimaad u rajaynayo dadka dhaawacu soo gaaray, iyagoo sheegay inay caawimaad la garab taagan yihiin dowladda iyo dadka Soomaaliyeed. dowladda Turkigu waxa ay sheegtay in weerarkaas uu ahaa mid bahalnimo oo lagu carqaladaynayay ammaanka iyo xasilloonida Soomaaliya. dhanka kale wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa waxaa weerarkii shalay lagu qaaday wasaaradaha uu sheegay in uu xusuus u yahay hadalkii Al-Shabaab ee ahaa inay isticmaalayaan rabshado. waxa uu sidoo kale tacsi u diray qoysaska dadkii dhintay. Michael Keating ayaa waxa uu tilmaamay in uu xushmad u hayo dadka ka qayb qaatay gurmadka. dowladda Sacuudi Carabiya ayaa sidoo kale ka mid ah dowladaha cambaareeyay weerarkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Sacuudi Carabiya waxa ay sheegtay in ay ka xun yihiin waxa gaaray shacbiga ay walaalaha yihiin ee Soomaaliyeed. dhinaca kalena kadib weerarkii shalay lagu qaaday xarunta wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa xildhibaan ka tirsan golaha aqalka sare waxa uu wasiirka amniga Soomaaliya ugu baaqay inuu iscasilo. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramaya. xildhibaan Axmed Macalin Cumar oo ka tirsan xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ka tirsan guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka aqalka sare oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa uu sheegay in wasiirka amniga
uu codsi u soo jeedinayo inuu iscasilo maadaama shaqadii loo igmaday uu gabay sida uu hadalka u dhigay xildhibaanka. sidoo kale xildhibaanka waxa uu sheegay in amniga uu faraha ka baxay, taasina sabab ay u noqotay inuu codsi u soo jeediyo wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxaan isleeyahay wasiirka amniga waxaan isleeyahay anigu waan soo jeedin lahaa inuu iscasilo maadaama dhacdooyinkani ay asaga maanta asagoo wasiirkii arrimaha amniga ah ee mar walba dushiisa ku dhacayso inuu maaragtay waxaan walaalkay u soo jeedin lahaa inuu iscasilo asagoo oo nadiifa oo maaragtay maadaama ay arrintaas ku dhacday mar walbana ay soo noqotay dushiisa ay ku dhacday inuu iscasilaan soo jeedin lahaa khaasatan wasiirka amniga. waxaan ku sababayay waxa weeye maalin walbaba dushiisa waxaa ku dhacdaa yani arrin oo mujtamaca Soomaaliyeed waxaa maalin walba soo gaara isagoo wasiirkii arrimaha amniga ah inay dhibaato maalin walba soo gaado. saa darteed waxa weeye adduunka waxaa ka jira qofka haddii wixii uu wadi waayo oo arrintii uu u arko inuusan wadi karaynin waxaa u fiican in maaragtay uu banaanka ka istaago oo yidhaahdo arrintii nooca ahayd aniga aanu xisaarnaa ama arrintii amniga aniga aan wasiirka amniga maadaama ahaa ee Soomaaliya arrintaas waa wadi waayey inuu yidhaahdo waxaan hayn sharaf aan ahayn oo u soo kordhaysa haba yaraatee ma jiraan wax sharaf xuyaa uga soo kordhayso. aan kula talin lahaa ninkaas walaalkaya inuu iska casilo kursigaas inuu iska casilo wasiirnimada amniga. hadalka xildhibaanka ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli shalay qaraxyo iyo weerar toos ah lagu qaaday xarun ay degan yihiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo tan amniga, kuwaas oo ay ku dhinteen ku dhowaad 20 qof in ka badan 25 kalena ay ku dhaawacmeen. shacabka magaalada Hargeysa ayaa maanta waxa ay dhigeen banaanbaxooda waxa ay ka hordhigeen xarunta madaxtooyada ee Somaliland. wariyaha idaacadda kulmiye uga soo warrama magaalada Hargeysa Ilyas Cabdi Cali ayaa ka warramaya. wad mahadsantahay cali mudaharaad dad banaanbaxayo oo u badan dhalinyaro ayaa waxay isugu soo baxeen ama ku hor mudaharaadeen xarunta madaxtooyada Somaliland kuwaasi oo dadkaasi ka caraysnaa xaq sheekh caanka Somaliland oo reeraha Sheekh Sunna iyo dhowr iyo 10 dhalinyaro oo muddo sanada ku xiran jeelasha Hargeysa isla markaana wax maxkamada aan la geynin kadib markii lagu soo xiray kicin dadweyne iyo in falal argagixisna ama shaki caankaasi oo dadkaasi lagu shirinayay koonfurta Hargeysa sanadkii hore. marka dadkaasi waxa ku tilmaameen booqashadaas iyo shir madaxeedkaasba kuwa lagu soo afjari doono colaadii muddada dheer taagneyd. wuxuu noqonayaa hogaamiyihii u horeeyay ee Itoobiya ee booqasho ku taga Eritrea markii ugu horeysay muddo 20 sanadood oo xiriir ah ama xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal u go'naa. bishan horaanteeda ayaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu qaabilay wafdi heer sare oo ka socda Eritrea oo Addis Ababa tagay. tallaabadaas oo daba socotay ballanqaadkiisii ahaa in uu aqbalayo heshiiskii nabadeed ee Eritrea u gooyay dhulka la isku haystay. heshiiska oo ay gaareen guddigii loo saaray khilaafka xadka sanadii 2002 ayaana si rasmi ah Itoobiya ay hore uga aqbalin. warkii duhur oo idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho aad ka dhageysanayseen maanta intaas ayuu ku dhan yahay. cidii warkayagu dhaafay raadiyo kulmiye.net ayay ka dhageysan kartaa. dhageystayaashana ku sugan magaalada Gaalkacyo raadiyo hayaan ayay naga dhageysanayaan magaalada Beledweyne wadani